السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal channelkan ogaal maal tv subscribe saar haddaad nagu cusubtiin idinku aad iyo aad u mahadsan. allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed. nabiga ku salliya marka hore, kadibna waxaan bilaabaynaa insha allah barnaamijkaas aanu ka hadlaynay kolba wixii aynu ka hadlaynay. markaad diyaaradda raacdo weligaa maanta waxaan ka hadlayaa diyaarad markaad raacdo ma aragtay sida ay noqonayso magaalooyinku sida ay noqonayaan iyo guryaha waaweyn ee markaynu dhex joogno dhulka aynu joogno nala waaweyn markaad hawada tagto waxay noqonayaan inta ay leeyihiin, taasoo ku xusuusinaysa ilaahay subxaanahu watacaala iyo awoodiisa. waxa yar ee mataqaanaaye dhagax yar oo meela dhigay bay noqonaysaa markaad hawada gasho. markaasaa waxaas leedahay ma waxaa yar ee sidaas noocaas un miya waxay dadka mataqaanaaye bini'aadankii ay saa ugu rafaadaan ay kumanaas intaasoo sano. waxaad arkaysaa qof yar guri yar dhisaya marka cabsida ilaahay bay kusoo xasuusinaysaa iyo mataqaanaa awoodda ilaahay iyo waxa alla mataqaanaaye markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay waxa maaragtay wuxuu inoo ballan qaaday wanaag ah laanno markaad hawadaa gasho waxaa yar waxay noqonaysaa meel yar wax yar dhagax yaroo meel la dhigay. gurigii weynaa dabaqii dheeraa intaasoo biyaana ahaa intaasoo isdul saaraa. marka si kastoo adduunyadan loo qurxiyo oo loo waxeeyo haddana waxba ma aha, xaqiiqatan waxba ma aha. markaad u fiirsato waxba ma aha. waa kiina xadiiskuna ahaa janaaxa bacuuda ku tilmaamay, micnaha garab kaneecaa lagu tilmaamayo. markaad hawadaa gasho ee diyaaradda saaran tahay wallaahi iimaankaaga iimaan baa kugu ziyaadaya, laannahu waxaad ogaanaysaa adduunyadan la isku daalinaya dhabarka la isaga jebinayo inay waxba ahayn waxaba ma waxani. marka ilaahay subxaanahu watacaala meelaha wanaagsan ee noo ballan qaaday ee jannada kuwii alla geeya ilaaha naga dhigo. taasoo iyaduna lafteedu dadaal u baahan. adduunyadana de in wax la dhisto oo la dadaalo waa wax weeyaan, waa wax wanaagsan oo ina faran weeye. laakiin waxa la ina faray inaanan adduunyadan qalbiga la gashaninoo aan adduunyada qalbiga aanan la gelinin, laakiin dee gacanta lagu haysto la isticmaalo. laakiin qalbigaaga intaad dhigto inaad iyada wax walba ka dhigato, taas weeyaan tay laynoo diiday. waxa weeyaan waxaana hadda maanta aragtaan dhaldhalaalkana rag inagoo kale unbaa dhistay oo wax ay tahayna male waan dhisan karnaa haddaynu inagu aynu danaheena dee aynu hoos u fiirino, danteena aynu mataqaanaa hoos u fiirino. marka waxa weeyaan toobigaygu maanta insha allah intaasu hayo inaan bal aan ilaahayna isxasuusino adduunyadana inayna wax weyn ahayn, aynu mataqaanaa aynu ku qus qaadano. de in badan ka mid ah diyaaradan diyaarana waad raacdeen. marka waxaa saa u yaree markaad adduunkan korkaa markaad aadaan xataa magaalooyinka dhanba mar baan la arkayninba. marka waxaa noocaasa inaynu dadkeenu isku caayaan oo isku halaagaan oo 24 saac waxaan macno lahayn laga hadlo. wallaahi aad baad uga murugoonaysaa in khayrka la isxusuusiyo oo wanaagga laga shaqeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala la isxusuusiyo iyo maalinta dambaysa iyo jannada iyo meelo lagu raaxaystaa jireen. meeshan raaxa ma taalla. qof adduunkan joogo oo dhahaya niyo 100% way ii gaadhay ma arkaysid. qof walba waxbuu ka cabaadaya, waxbuu laannahu meel raaxa maba joognaba, meel lagu raaxaysta lama joogo.